jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa si weyn u cambaariyay weerarkii wuxuusnimada ahaa oo ay geysteen kooxda Al-Shabaab kaas oo ka dhacay maxkamadda gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. weerarkan ayaa waxa uu ahaa mid ay ku nafwaayeen in ka badan 30 ruux iyadoona lagu soo waramayo inay ku dhaawacmeen dad gaaraya 50 ruux. dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay cambaareysay dadkii ka dambeeyay weerarkaas isla markaana dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday inay gacan ka geystaan ciribtirida dadka argagixisada ah oo mar kasta ka geysta weerarada noocan oo kale ah gudaha dadka shacabka ah oo waxba aan galabsan. qaar kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxay si isku mid ah u cambaareeyeen falkii wuxuusnimada ah ee ka dhacay maxkamadda gobolka Banaadir iyagoona dawladda ugu baaqay in ay la xisaabtanto lamaha ammaanka oo shaqada ku jiray xilliyadaasi. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. waxaan aad uga tiiraanyeysanahay aadna uga xunnahay aadna uga naxsanahay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho qaas ahaan maxkamadda gobolka Banaadir oo qarax aad u fool xun ah oo ay geysteen dad dambiilayaal ah oo aan xishood mid diin iyo mid dadnimo aan lahayn midnaba. qaraxaas waa cambaareynayna dad yacni irxam laawayaal ah oo aan naxayn inay yihiin ayaanan ummadda Soomaaliyeed u cadaynaynaa. dadkii geeriyooday oo ay dadka dhinteenna waxaan leenahay samir iimaan Allah in ka siiyo. dawladdana waxaan leenahay oo banaad sahla marka waxaad moodaa in ay jirto yacni isku xir gudaha ah iyo mid yacni dibadda inay soo socoto sababtoo tahay intaasoo qof oo dagaal ka sameeya meesha wax sahlan ma ah. waa connection inuu jiro waa inay dawladdu ay baaritaan samaysaa arrinka ku saabsan lagana shaqeeyaa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan taasiin kareynaa dadka Soomaaliyeed halka ku dhintay waxaan cambaareynaa dadkii qaraxa geystay. waxaan leenahay haddii qaraxa lagu tarayo ama ku geynayo dadkii hore aad u lahayseen hoteelada Pakistan wax lagu gaari lahaa qof la qarxiyo xol uga gaaro oo muslim la dilay. waxaan leenahay ilaahay u naxariiso inta dhimantay ilaahay u naxariisto inta dhaawacan ilaahay noo caafiyo. dawladdu waxaan ka codsanaynaa inay meelaha dadka ay degan yihiin ammaankooda sugto nimankana khaldan madhabka khaldan wata. waxaan leenahay qarax hadduu wax tarayo hotel Shaamow iyo halkaah iyo saamaha inta aad ku lahayseen wax idin qaban lahaa sumcadiina ku shidhimanayso. haddii aan nahay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town mar walba qaraxyada loo geysto dawladda Soomaaliya waa ka xunnahay. waxaan rajaynaynaa in dawladda Soomaaliya ragga sidaas sameynayo oo Al-Shabaab ay yihiin in gacan bir ay ku soo qabato shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caalamka iyo dalka. waxaan rajaynaynaa in isku meel ay ka soo jeestaan dalka mar walba dadka dhibaatada ku hayo in hadda la laayo ducaada Soomaaliyeed culamaa u diinka iyo dhibaato badan in lagu hayo qaraxyo badan loo geystay. waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliya baaqaas in nayaab bashadii aan jaaliyada Soomaaliya waxa uu baaqaynaa in Al-Shabaab ay gacanta dawladda ku soo qabato. raggaasna waa la yaqaanaa ragga qaraxyada dhigay waa Al-Shabaab ragga dhibaatada ku haya dawladda waa Al-Shabaab. marka dawladda waxaan rajaynaynaa in raggaas gacan bir ay ku soo qabato. السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا واس علي محمود كنا ما عدد واس علي جيم. الله وحن آدي وحنا قرية كذا عين مقالة مقدسة. وش نمدا هاي. أنا وكمية جالية صوماليا صوت أفريقيا. والله آدي هذا يا نو وحنا هاي دولة صوماليا وحن لها الله سي آدي إني وقبت ضد كساس وقلا ضد كشعب كصوماليا دولتنا حوجيسو مسؤوليتها. weerarada noocan oo kala ah oo lagu gumaado dadkan waxba galabsan ayaana ku koobneen inay ka dhacaan wadanka Soomaaliya iyadoona maalintii shalay weerar aad u xoogan oo gilgilay ariga Mareykanka oo ka dhacay magaalada Boston. Cabdullaahi Ibraahim Dasar, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Cape Town.